kadib markii uu fur wiilkan bombala maamulaha uu iska jibiyay ay wuxuu qudhex arkaya kaamiradaani markaas ay wuxuu bilaabaya kaamirada inuu soo bixiyo uu geliyo laptopkiisa markaas uu ka arkay maamulkiisa oo iska duubay muuqaal aan caadi ahayn wiilkan markaas uu xanaaqaya wuxuuna sameeyay muuqaalka uu gelinay internetka waliba isagoo maamulkiisa ciil far badan u haya ardayda iskuulka iyo dhammaan dadka xaafadaha jooga idil way arkayaan isagana wuxuu ku faanay qof ka soo qarxay maamulkiina uu isaga yahay markaas ay waxa loo diray waalidkiisa hooyadiisa inay imaanaysa meesha ay ku oonayso oo maamulaha jilbaha ka qabsanaysa markaas ay waxa bilaabay wiilkeeda inay canaanto iskuulkuna ay ka soo wadayso waxay keenaysaa xaafad dibna xariifka waa haakin weyn meesha ayuu ka shaqeynaa waa laga soo burinaya markaas ayuu isdhahay waxa ku bilaabatay noloshii adke balse si lama filaan hal mar ay wuxuu hakan gareenayaa kafeterigii iyo macaamiishiina mid ayuu meesha aaga burinaya ninkan wuxuu bilaabay hal mar in uu waayo macaamiil aad u far badan oo meeshaasi uu ku shiido wiilkani waa karaan caadi ahayn markaas ay wuxuu bilaabaya inuu ka shaqeeyo qashinka iska fadasha iska shaqeysanaya wuxuu ku dhex arkaya waraaqadan waxa ku qoran tartan taasoo waliba loo qabanay hakarada wiilka markaan isma oga balse tani waa fursad ay isku bedeli lahayd noloshiisa oo markaas ay hal mar wuxuu imaanaya meesha lagu qabanaya tartanka ayagoo badan waliba hakarina ninkii tartankan ku guuleystan waxa la siinayaa $10 milyan hakariska waxa lagu tartansiinaya inay jabiyaan security-gan sida hore soo sheegnaba qofkii ku guuleystan wuxuu qaadanayaa $10 milyan wiilkan wuxuu bilaabayaa meeshan tartanka inuu ka qayb galo xariifka isku madayo inuu hakin gareeyo wax loo diray wuxuu isku dayayaa inuu hakin gareeyo dadka meesha taagnaa oo maantoodna laptopyadooda wuxuu ku sameynayaa hack ayagoo qof waliba halkaas taagnaan la yaabay wiilkan waxa uu sameynayo dadka idil waxay yaabeen wiilkan yar tartankan ka soo qayb galay ayagoo idil ku sheekeysanaya wax uu sameynayo xariifkan yar balse hal mar waxa ka dhacay xariifkii qalad yar wuuna yaabay oo naxay wuxuu isdhaaway ku dhamaatay balse xariif kale ayaa imaanay oo hal mar caawinay wiilkii yara wuxuu sheegay koodka ka qaldan wiilka markuu sameeyana hal mar isaga ku guuleysanaya lacagta meesha taalay oo idil si lama filaana wiilka hal mar waxa isbedelaysa noloshiisa oo idil wuxuu noqonayaa qof caan ah